indhaha qalbiga ka eeg ma fogo indhaha qalbiga ka eeg ma fogo waxaan yaarago هلو السلام عليكم خيري برواقة نميرجانيا وافحية عبسية كسو دوادا قيبتي صدحاد شاكري جعلك أحيد The Memories of the Lake House أما حسوستي أقلكي وبيدو كيالي So do فضلا انتينا نلاوين share, comment, like, follow and subscribe. Alright واتهاي waxaynu maraysay iyada oo David oo diyaaradiisii saaran private jetkiisii uu TV-ga intuu daartay uu ka arkay waraysigii laga qaadayay Margaret oo ay kaga hadlayso buuggeedii The Memories of the Lake House dabadeetana uu dareemay in qofkani yahay qof uu meel ku arkay qof uu garanayo oo wax badan soo xusuustay waqtigii ugu farxadda badnaa noloshiisa oo ahay markii uu yaraa iyo intii uu la kulmay gabadhii yarayda dariskiisa ahayd ee Margaret magaceediisa isagu xataa ma xusuusto Margaret qudheedu markii ay waraysigii iyada qudheedu xafiiskeeda ka daawanaysay ee lagu yidhi TV-gaad ku jirtaa sawiradii waaweynaaye ee gurigeeda ku yaalay Lake House-ka ahaa ay sheekadu maraysay aada iyo aada bay u qiirootay waxay inoogu dhammaatay iyada oo David intuu taleefonkii qaatay uu wacay realtorkiisii kuwa guryaha iibiya oo uu ku yidhi iisoo ogow gurigii aan markaan yaraa waqtigaas Lake House-kii inuu iibihay in kale oo aan iibsan karo halkaasay inoo maraysay waa tahay dhanka kale waxaynu kusoo noqonnay Margaret oo habeenkii soo rawaxday oo gurigeedii timi oo intay iska qubaysatay oo maro yaroo qurux badan oo comfortable ah maaragtay dharkan guriga lagu joogo ah oo toob dheer oo iska maaragtay furan go-shaalana sidaa u huwano halkaa balconiga daarteedii dheerayd New York oo dhan sidaa dusha uga eegaysay penthouse-keedii fadhida oo lugaha intay isdul saaratay koob shaahana gacanta ku haysatay halkaa markay maraysay ayay xusuus dib ugu noqotay waxay soo xusuusatay maalintii ugu horreysay ee ay David sarkeed maalintii ku xigtay iyada oo subaxii markay kacday habeenkii iyada oo habeenkii sugi kari weyday inta waagu barayayo ee ay David arkayso her new friend saaxiibkeeda yara cusub dariskeeda dabadeetana salaadii bay ka boodayo quraacdeedii iyo waxeedii isku diyaarsatayo waaba kasoo horumartay hooyadeed marka waqtigaasi waqti wuxuu ahaa samar ah oo iskuulladu xidhan yihiin markaas hooyadeed ku tiri maxaad la soo jarmacday saaka iskuul baad u socotaa markaasay tiri maya waa iska soo kacay it's a beautiful day waa maalin qurux badan deetana serial yar intay shubatay miiska la fadhiistay way marba bannaankay qooransanaysaa is leedahay bal inuu soo baxay serialkii bay dedejisay markaasay halkii balconiga u baxday waxay balconiga cabaar taagnaatay marba qooraansato dhinacii bidixda eegto in David soo socdo hore markii u arki weyday iska daadegtay iyadu keligeedoo iska tagtay meeshii biyaha u dhaweydo ay bilowday inay dhagax iskaga tuurtuurto wax yar kadib ayay jabaq maqashay xagga dambe ay agtay mise David baa soo socda hey Margaret waad iga soo hormartay markuu soo gaaray buu yidhi hey xalay oo dhan farxad waan sugi kari la'aa inta waagu bariyayo ee aan ku arkayo waqti fiican baan shalayto qaata aad ku mahadsantay inaad igu soo dhaweysay xaafadan cusub
waayo markii aanu soo guuraynay maan jeclayn markii la sheegay inaan guurayno waayo asxaab aan ku lahaa xaafadii hore ismaan lahayn maaragtay qof cusub weliba ismaan lahayn meel maaragtay cidlaahoo leeg ahoo biyaha u dhowde ayaad qof yaroo aad la ciyaartid ka helaysaa I'm so happy aada iyo aad baan u faraxsanahay markaas iyaduna ku tiri aniguba sidaasoo kale waayo gurigani in badan buu de codkoodii yaraaya caruurta gurigani in badan buu cidla ahaa marka waan u baahnaa cidaan la ciyaaro aada baan ugu faraxsanahay high five oo kale ay gacanta saa isugu dhufteenoo markaasay intay kaceen biyihii marna dhinaca u carareen marna dhinacan u carareen waxyar kadib hooyadii baa soo istaagtay balconigiiyo markaasay aragtay gabadh yaradii David wada ciyaarayaan oo faraxsan yihiin oo markaasay u yeedhay David kaalay soo dhaqaaq iyagu way garanayaan reerku inay reerkani madow yihiin isagu laakiin badda ama hayada inkastoo markaada gabadh cad u eeg tahay haddana de isagu maba kala jeclade caruurta waa inaysan markay waqtigaa leegyihiin markaasay tiri soo kala haddaa isagoo ceel yarahayo doonayn inuu gudaha galo ayaa telefoon soo dhacay hooyadii markaasuu iska sii joogay David gudahay ku noqotay telefonkii baa soo dhacay waxyar kadib haddana waxaa soo baxday Margaret hooyadeed markaasay Margaret haddadaad gudaha soo gal markaasay iyadiina saag noqotay hooyo in yaraa iska sii ciyaaro marka Margaret hooyadeed gabadheedii yar inay lonely tahay oo in badan aanay waxay la ciyaartay arag ay ogeyd markay soo dhaqaaqday garbihii sidaa u rugatay ay si yaroo tiiraanyala u soo dhaqaaqday ayay ku tiri okay iska ciyaar halkanaan kuu fadhiisanayaa 5 more minutes kursigii bay soo jiidatay oo halkii bay fadhiisatay koob shaahintii soo shubatay bay halkii fadhiisatay si ay uga ilaashato gabadheeda marka waa kuntameeyadii dhexdeedii oo adigu 60kii kusoo dhowdhow oo waqti ay maaragtay kacdoonkii dadka madoobay uu aada usoo xoogeysanayay oo ay ka daaleen inay maaragtay maalin walba diyaarka kaxisadan joogtada ahee iyo weerarkan ku socda ee dadkoodii la leynayo ee leeyahay ku noqda meelaha ka timaadeen ee la gubayo guryahoodii ee maaragtay businessyadoodii la gubayo marka waxay ahayd markii Martin Luther King iyo Malcolm Xna ay bilaabeen dhaqdhaqaaqoodii laba fikradood oo kala duwan oo Malcolm Xna uu yahay aynu wax iska celino nimaan shani kaa reebin sharci kaama reeba aynu wax iska celino Martin Luther Kingna uu leeyahay marka dhankan lagaa dharbaaxo dhanka kale ujeedi aynu maaragtay sasabo iyo baryo iyo maaragtay wanaag wax ku raadino labadaa fikradood baa markaa isbarbar cararayay marka madow badani waxay bilaabeen inay ishubeeyaan oo yidhahdaan kulleyba waa dhimanaynaa waa layna leynayaa innaguna aynu qaar sii kaxaysano sii jiidano inagoo wax iska celinaynaa aynu dhimano nafta kulley marun bay baxaysaaya waa markay xaafadihii dadka madow qurquruxda badnaa meelihii fiicfiicnaayay deganaayeen oo dhan ila wax walba wanaagsan baa lagala dagaalamayay la qurdudumsanayay dhowr reeroo cadcad baa guryihii ibsanaya magaaladii soo degaya wax walba cirkaasaa lagu marinayaa shaqadiina cunaqabateyn baa lagaga sameynaya dadkii madoobaa deetana waxaa qasab ku noqonaysa in dee ay guuraan dadkii madoobaa oo inta badan markaa meelaha kaliya u guuri karayna waa magaalooyinka waaweyn dhexdooda oo dee pollution iyo hawada xun tahay oo warshado miidhana oo waana waxyaabaha keenay madowga inay maaragtay waqti hore dhintaan waayo hadii jeer maaragtay qiiqaa kasoo baxaya warshadaha ayaa dadka dee markaad ereyooyinka xunxun degan tahay sanbabada ka gala oo asmo badan bay caruurtu yeelatayo gooray dadka madoobi maaragtay dee stresskiina u dheeryahay iyo dee baqdintii joogtada ahayd iyo cunaqabatayntii iyo ciilkii iyo cadhadii marka haddana sidaasoo ay tahay
Margaret hooyadeed way iska rabtay gabadheeda yar qof yaroo iskala ciyaarto oo inkastoo ogtahay wiilkaa yari hadhowta markuu weynaado inuu kuwii kale uu la mid noqon doono marka Margaret marka de weli waxay xusuusanaysaa markay waqtigaas markay yaray markay hooyadeed ku tiri iska ciyaar oo koob shaah soo qaato fadhiistay ayay dib soo eegtay oo markaasay qososhay oo markaasay ku tiri dhunkasho u soo tuurtay hooyadeed markaasay hooyadeedna sidaa u qabsatay iska sii ciyaartay oo another 15-20 minutes bay iska sii ciyaartay oo markii dambe soo baxday hooyadii haddana waryaa miyaanan kugu odhan soo kal Davidow markaasuu indhaha qalbiga ka eeg ma fogo indhaha qalbiga ka eeg ma fogo waxaan yaaraga buuq